waxaa la yidhi god sireed ha qodin wadana ha dheerayn ku dhici doontidna lama oga yaa waxa waaye arrinta ka dhacday magaalada Minneapolis waa arrin la yaab leh runtii waa arrin aan weli uga dhicin hadda ka hor magaalada Minneapolis oo ah in Soomaalida ku kala qaybsanto doorashada Minneapolis iyo Minnesota oo dhanba in Soomaalida ku kala qaybsanto oo hal meel u codeynin aysan u codeyninna dhalinyaro Soomaali ah aysan u codeynin waxaa waaye waa arrin soo socotay muddo oo la lahaa warbalnimanyo warbaldadyo arrintan arrin fiican maahe ha laga joogo maaragtay ha laga joogo arrintan dad waxaa soo baxay inta Soomaalidii meesha ay geysay haddana Soomaalida laftigeeda ka soo horjeestay waa Ilhaan Cumar iyo Cumar Fataax dhowr jeer loo digay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo han u haysay inay meesha maaragtay ii sheegeen gobolka iyo magaalada ay jagooyinka ka qabtaan ay hor istaageen markaas waxay uga hiliyeen dad ajnabi ah Yahuud Spanish Pakistan Hindi qof alla qofkii Soomaaliya ama wiil ha ahaato ama gabar ha ahaato oo istiraada meesha raadi weyn dadkaas ugu helinayeen waxay sameynayaan wax la endorsement oo ah in qofkaan raalli ka yahay isaga oo macnaha ii sheeg oo inuu maartay u tartamo meesha una taageersan yahay dhowr jeer waxa warhoy ka jooga warsansima war dhalinyarada Soomaaliyeed oo uga heelinaysiin muxuu ahaa ajnabiga ka jooga oo iska daayay maya gabar yar waxaa jirtay xataa ka noqotay magaalo yar oo maaragtay ii sheeg ku taal maaragtay Minneapolis ku dhagan oo la yiraahdo St. Louisburg gabar Soomaaliya waxay ka noqotay muxuu ahaa ii sheegeen mayor oo haddaba ka dadku waxay leeyihiin ninkaana ugu horeeyay oo hadda tartamayo oo macnaha mayorkii ugu horeeyay ah ma gabar Soomaaliya oo ka meel oo hadda sanado ka gabadhaas labadu waxay yiraahdeen waa naga fakatay say uga noqotay meesha hadda gabadha waxa uu codeeyay kaaga daranay cadaan uu codeeyay Soomaaliya oo degan meesha waxa uu codeeyay cadaan marka wala yar waxa la yiri arrintan maxay tahay anaga marka idin codeynayno waxa idin kugu codeynaynaa in aad tihiin dad Soomaaliyeed ayada inta loo codeeyay Ilhaanta wax badan waxa loogu codeeyay Soomaali ahaan looguma codeynin macnaha ii sheeg qabiil iyo Soomaali ahaan loogu oo Soomaalida isugu duubneedo codka Soomaalidu meesha uu raaco uu wada raaco guulaysanayso state-kan waa loogi marka Soomaalidii waxay keeneen kala qaybeen hadda arrintii waxay kaliftay arrintaas in Soomaalidii u kala qaybsantay ayadoo wiil Soomaaliya uu maaragtay u tartamayo duqi magaalada ama mayorkii magaalada waxaan la yaab leh laakiin maxaa ka horreeyay ugu yaraan 10 iyo kuwii tago leeyahay warsay anaga u tageen anagoon ogeyn waraadi maalaan dadku xukuma adi maxaa kaa galay waa tartamaysaa waa lagu codeeyay ayagana waa tartamayaan Soomaalida codeynay iska dhaaf waa taasa waxaa la yidhi god sireed ha qodin haddaa qodana ha dheerayn ku dhici doontana lama oga
باكاس حلي dhibaatadaas waa waxa keenay ayaga qof rabay nin yahuudna ma ashkanaasi waliba nimanka dadka la yiraahdo ugu xun ya in Soomaalidii ay u codeeyaan qaar oo ka codeeyaan wiil Soomaaliyeed wixii kalifay arintaas arin la yaab leh waxa waaye hadda marka haatan yadan waxa lagu la taliyay ayagii warhoy dadkiina soo dhaxgala oo taageera wiilasha Soomaaliyeed oo waliba isku xisbiga aatiin haddii xataa ay noqdaan xisbi kale waxay ahayd isku xisbi aatihiin ba xisbiga dimuqraadiga wiilal ah ya allo macnaha ii sheeg allo codeyn macnaha aysan siinin maaragtay ii sheeg taageerada ama endorsement-ga waxa la yiraahdo waa dimuqraadi ka war marka waa ismahadiyeen waxa waaye middan waa dhacday waxa waaye waliba doorashadan hadda wadanka dhammaaba laga hayo waxa la dhahay mamdaaniga oo macnaha midwestiga waa ninkan ama muxuu ahaa Minnesota mamdaaniga Minnesota ninka hadda ku guuleystay New York xalay oo kala waaya la dhahay dad badan ka soo horjeeda arrinta marka waxa waaye hadda dadkii waa kana waa qoslayeen anagu ma rabin inaan sameeyo wax la sameeyo sasal sameeyo ma rabin laakiin iga qasb marka hadda waxa waa haddii aysan soo noqonin oo san dadkooda ku soo noqonin hadda ayada ku xigtay hawaato waxa waaye midtermka ma dheer midtermka bilaan aan naga xiga waliba marka la bilaabayo ololiis bilaan naga xiga marka waxa waaye ayada laftigeedu waxa waaye فرع الدلة أي كي هرنا كوبحثت رنتي أو وحي مركي دلني يردي أي كسر هرجيستي لباب بندق يقول رئيس نينكي ماركت إيش كان معها أيضا ماركت كسر هرجيد ونين مذوقها لباب بندق أو صومالي أو عضيس نينكاس رنتي مركاس هيدا كوح مينيس أنا أول نوحي هلجرتي بقول كيف اللحلن تضبعات هل جرت marka hadda waxa waaye haday sidaas hadii aysan ka soo noqonin oo istiraahdo ajnabiga wax ku taray codka Soomaalida loo yimaadaan maaragtay sheeg Minnesota nin aan cod Soomaali helin ma guuleystaba total ina gunaay mar alla markii doorashadu soo dhowdahay masaajidada iyo suuqyada Soomaalida ay ugu soo qulqulayeen waxay ogaadeen codka Soomaalida 100,000 oo Soomaali ah degan magaaladan Minneapolis 100,000 iyo Minnesota markii la isku daro 100,000 ma sahlana marka codkooda abandama marka waxa waaye talo hal suma ka sheegto halka ay turka leedahay dib isugu noqdo taasan leen ajnabi wax ku tarimay runtii ninkeedii ka hiliyay ninkii qabi jiray oo ninka gaalka ka raacda wuxuu la jiray ninkii maaragtay ii sheegeen Jacob Fry oo ashkanaasiga ah oo la jiray marka waxa waaye waxa ku kalifana waa taas ma fiiri ilmaheeda adeeradood waaye waxa ay ka soo horjeedo iyo adooyinkood ka war waxaas ilaa ugu dhaash hadda waxay dhaysa maal dhaweyd gaalay naga raaceen oo adigaba gaal raacay oo gaale iyo waxaan la ogeyn raacay oo muxuu ahaa ii sheeg waliba gaal ka dooratay wiil Soomaaliyeed marka adaba gaal raacay ma gaal raaca kaloo la sheegay maanta adaba meesha u joogay mideeda kale sida looga necab yahay macnaha ii sheeg ayada sida looga necab yahay Congress-ka naaga waxaa jira inay bistolooyin soo qarsadaan runtii laba naagood oo midna la yiraahdo Lauren Boebert iyo Marjorie Taylor Greene laba naagood oo waawalan oo Republican oo waxa jira laga celceliyo ayada marka waxa waay meel walba dabaysa ka dhajis bal waa kaasab waa reer la yaab waay inta uu soo galay mac salaam